Faadumo Warsame Faahiye waa hooyo danyar ah oo ku nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal waxaanay gacanta ku haysaa laba wiil oo iyagu madaxa ka xanuunsanaya in muddo ah. Hooyadani ayaa waxa ay inta badan ka shaqaysaa kuuliga si ay ugu xoogsato isla markaana ay nolosha qoyskooda ugu dabarto. Hooyo Faadumo Warsame Faahiye oo aanu maanta ku booqanay hoyga ay ka degan tahay magaalada Boorama ayaa waxa ay indhahayagu qabteen hooyadaasi oo ardaaga gurigeeda ka shaqaynaysa isla mar ahaantaasina guriga xoogaa yara hagaajinaysa. waxaana wax ka weydiinay nolosha qoyskooda iyo xaaladda labadaas wiil ay hadda ku sugan yihiin iyada oo noogu jawaabtay. Faadumo Warsame Faahiye hooyay war خير هوي أحمد وناكسنت هوي أحمد أنا قاعد صوت تعبان كاسن كجرا ما صار شقينيسي ما أنت وين شقينا يا صرفت أصلا من كيلا هيا بعوح الحديد بتلمية ما هي دواك ما شاء الله ما شاء الله إن مدينة يجور إن مدينة عاد وناكسي عفمات كوب عاد في عيها marka markaana hawl hay gurigaas aad sarabta iyo hawlaha ku dhista hawlahaas aan maalintan kuuliga soo waayo iyagaan u shaqeeya maanta marka iyo halkaas aan shaqeynaya waxaan rabaa inaan wax yar dhagaxdan iyo wax ku sameeyo on dhoobo yarna ku dhajiyo asturaad han uga dhigo asturaad on de halka kaniif yar oo waxay ma sha Allah hay madam maxaad ugu baaqaysaa waxaan u baaqayaa aad iyo aad urta caafimaadkooda u fiican yahay laakiin waxaan rabaa hadii alla ka dhigo nafaqadooda naruuradooda waxtarkooda de waa ragga 20 jirayaasha iga xoog badan shaqadaydina waxay tahay waad ogtiin marka wax walba waan u baahanahay waxaan u baahanayn ma jirtaba ma garanaysaa waa taana fayba kaniif qodaya ma jirta waa god yar oo rabo una kaadidooda yar ku guro oo kolna ka guro waliba ya ilaa meel ii kala waxay soo kaniif kuma yaalo meel taasada dooxangeeya aslan ku fariisiya dooxangeeya dhibaato waan ishaynaa laakiin insha Allah waan ka baxayaa garab iyo gaashaana darajo waxaan ka sugayaa dadkayga sharafta marka mar labaad waxa ku codsanaysaa in lagu caawiyo maaragtay la iga caajis aad la iga fiirsan wixii karankooga ummadda muslimiinta deeqa kala duwan baa ku soo gaaray waad ogtahay ummadii muxsiniinta ku soo dirteen oo mahad celin baan siinayaa 24 saacadood ducaan u wado maantana $100 ayaan ugu tala galnay marka $100 waxay ka timiday walaalo muxsiniina oo dibadda ku kala dhaqan marka walaalayaal saad arkaysaan lacagtii wata waa la naga gudoomayaa waan gudoomay marka Faadumo ka gudoon dadka ku soo diray $100 waan ka gudoomay dadka sharafta leh ee muxsarka ee meel walba jooga hayna ilaawina aad igu sii badiya ya dhibaatada haysata waad arkaysaan 24 saacadood intaan ma rahay maqanahay dibta haysata ilaahum baa qiyaasi kara ya haday saxarabtay wax walba haday tahay ragga aan baa ka wadaajinaya si kastaba ha ahaatee hooyo Faadumo Warsame Faahiye ayaa ummadda muxsiniinta ka codsatay in loo gargaaro wixii taakula ahna lagu soo caawiyo waa nuux kadiye magaalada Boorama.